madaxweynaha Khaatumo Professor Ali Khaliif Galeed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhaweed ka soo degay garoonka diyaaradaha Golayeedha ee magaalada Laascaanood xilli uu ka soo noqday dalka Djibouti halkaas oo kulan kula qaatay madax ka socotay Somaliland waxaana garoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudida wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID maamulka heer gobolkan degmada iyo shacab aad u tiro badan waxaana ugu horeyntii saxaafadda la hadlay wafdigii ka socday Somaliland iyagoona si mug iyo miisaan la ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood siyaasi Ali Khaliif Galeed wax maanta ilaahay mahadi ah inuu wada hadallo aanu meel fog ka soo curinay aniga iyo professorka iyo rag kale oo fara badan oo inala jooga iyo qaar naga maqaniba maanta ay halkan marayaan oo si nabadgelyo ah shacabkeennii iyo ummadeennii iyo xukuumadeennii dhammaanba aynu halkan ku wada xafladaynayno oo aynu isugu nimo wax ilaahay loogu mahadiyo inay dhammaystiranto na ilaahay baynu ka rajaynaynaa waana ku rajo weyn wayna ahaanaysa sida waxaan u soo dhaweynay Professor Ali Khaliif Galeed oo ka soo kicitay isagoo wafdi ballaaran hogaaminaya dalka Djibouti halkaas oo dhaweed buu joogay wada hadalladii ka dhaxeeyay maamulka Khaatumo iyo Jamhuuriyadda Somaliland aynu rajaynayno bidmilaahi karim inay meel dhalaan annagoo taageersan soo dhaweynayna ku naalona bidmilaahi karim inay si qarqo ku dhamaadaan waxaanu ku sheegaynaa halkan waa Laascaanood ku soo dhawow waa nabadgelyo كل ده وحي ورا دب إن شاء الله تعالى سؤالك يا سفر كذا دب نسكور يسدونا ما أنت أرنتن ما أنت لجاري هاول يرانكم أي من ركبة كشقية إلى صدح سنوات كشقيني صدح سنوات ركبة كشقيني ويصير كان يروح يجا كم دي هاي ومالن بركيسن ومالن ده وناق وضنه والشور كقرة إلى هاي نوفس حي أو كسلحة أي إلى هاي نوفس حي ما أنت وحوية بروفيسورka waa magaaladiisii waa dalkiisii ku yimi waxa ogaataan inaan wax ku noqon karno midnimada waftiga hogaaminayo Ali Khaliif Galeed iyo xubnaha la socda wada hadalay Djibouti waftiga hogaaminayo wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xisbiga UCID cuqaasha odayaasha waftiga Djibouti nooga yimi waxaan leenahay Dr. Ali Khaliif Galeed ku soo dhawow garoonkii Laascaanood ku soo dhawow magaaladaadii aad baan kugu mahadnaqaynaa waftigu hogaaminaya Professor Ali Khaliif Galeed ayaa iyaguna ka mahad celiyay soo dhaweynta qiimaha badan ee loogu sameeyay garoonka diyaaradaha Golayeedha ee magaalada Laascaanood waxaan aad ii farxad gelinaya maanta inaan Golayeedha joogo Laascaanoodna ii muuqato aad baan ugu mahadinayaa dadkan badan ee na soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada odayaasha dhaqanka culamaa u diinka shacabka intuu dhan waa ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan si fiican iyana ugu mahadnaqo maxamed xaaji aadan iyo Faysal Cali Waraabe oo aanu Djibouti wada joognay oo iyaku baabuur kaga yimi halkaas oo iyana halka dadka nagu soo dhaweynaya kamidka ah waxaan raacsanayaa wada hadallaan noo bilaabmay wax noo dhamaaday ma jiro dad baa meelaha waxay la wareegayaan horaaba wixiiba u dhamaadeen oo lagu kala tag waray waxaanu xagala geel wax la qariyo gunti la galiyo ka weyn war waa arrin culus war waa u dhabar adeegaynaa war wax badan baanu rabnaa inaanu ka wada hadalno oo ka gungaadhno dhawaan ayay ahayd markii siyaasi Ali Khaliif Galeed loo diiday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle balse waxa sidaas si ka duwan maanta magaalada Laascaanood loogu soo dhaweeyay si maqaamkeedu aad u sareeyo Samiir Saciid Bile Muqbaaya xorta ee Bulsha TV Laascaanood